maxay tahay kutaantu kutaantu cudur ma gudbisaa xagee baa laga helaa kutaanta ma la isu gudbin karaa iyo sida lagu hortago afartaas ay ku koobnaan doontaa insha Allah maanta in ku hadli doono marka hadii aan ku bilaabo waa maxay kutaantu waa cayayaan yar yar oo u abuuran si wareega waxay socotaa habeenkii kutaantu ma boodi karto mana boodi karto marka maalintii ma socoto waxay socotaa habeenkii waxaana jirta in markii habeenkii soconayso ay dadka ugu timaado sababo ah qofka kaarboonka ka soo baxaya jirkiisa ayaa soo jiita iyo iftiinka oo markaan jirin hadii iftiinku jiro inta badan waxa laga yaabaa inay ka dhumato iftiinka oo sensitive ku tahay iftiinka marka kutaantu waa xaweeye waa sinu soo sheegnay waa cayayaan yar yar waxay socotaa habeenkii socodkeeduna waa socod iska ayar oo ma boodo mana duusho ee way gurgurataa waxa kutaantu ay waa inay heshaa dhiig si ay u noolaato marka waxa jirta dadka ka soo koob waxa ku noolaan kartaa digaaga waxa ku noolaan kartaa bahasha la yiraahdo fiilmeerta waxa marka u soo xiga ku noolaataa dadka laakiin caadiyan xayawaanka uu ku jirtaa inta badan kuwaas ay ku nooshahay laakiin waxa u soo xigana waa dadka hadii aan isweydiino tolow kutaantu ma gudbisaa xanuunada su'aashaas jawaabteedu waxa weeye maya kutaantu cudurka sideeda ma gudbiso laakiin qaniiniyada ay qofka qaniinto ayaa waxa sababta inuu qofku jirkii xoqitaanka uu xoqayo ayaa waxa dhacda in meeshii nabar noqoto marka nabarka ay noqotayna inay sababto inuu ku dhaco qofkii maaragtay waxa la yiraahdo infection taas waa laga yaabaa inay keento waxa kale oo ay sameyn kartaa qofka inay hurdada u diido oo hadii qofkii maaragtay cunto oo isxoqo habeenkii oo dhan inay hurdada u diido hurdada diiditaankaasina qofkii jirkiisa aanu nasasho la'aantaasna ay keento in qofka habdhiska difaaca jirkiisu uu daciif noqdo oo soo ka warhaysaanba qofku markuu habdhiska difaaca jirkiisu uu daciif noqdo wuxuu u sahlanaadaa ama jirkiisu u sahlanaadaa inay ku dhacaan xanuunada kale taasna waa wax inta badan wada ogsoonahay taas way keentaa kutaantu oo waxa laga yaabaa qofku markuu maaragtay soo jeedka faraha badan iyo hadii qofka cunto oo jirkii xoqo inay maaragtay secondary xanuunada kala keento laakiin iyadoo xanuun gudbiso haddaba waa yahay kutaanta xagaa laga helaa kutaantu waxa inta badan laga helaa laablaabyada gidaarada sariiraha meelaha maaragtay furaashada dabadooda iyo meelaha laablaabyada ah ee sariiraha waa laga helaa khaanadahana waa laga helaa waxaana kale laga helaa darmooyinka iyo gidaarku meesha saga yimaadana way gashaa meelahaasayna gashaa inta badan si ay iftiinka saga ilaaliso waana meelaha inta badan laga helo waxa jirta qofku hadii uu socdaalo oo uu ku nagaado hudheel uu seexdo in hudheelada qaarkood ay leeyihiin ku nagaashaha qofku ku nagaadona waxa laga yaabaa alaabooyinka uu sito sida boorsooyinka inay soo raacdo taasina waxaynu kaga hadli doonaa su'aasheena ah sidee la isugu gudbiyaa mas'ala la isugu gudbin karaa kutaanta waa la isugu gudbin karaa waxa la isugu gudbin karaa oo kaliya toon inuu qofku dago oo uu ku nagaado ama uu seexdo meel ay kutaantu rigli u leedahay ama deganaansho u leedahay saan hore soo sheegana alaabooyinka qofku sito inay soo raacdo qaabkaas waa qayb la isugu gudbiyo waxa kale la isugu gudbiyaa kutaantu furaashada aynu maaragtay ku seexano hadii ay ku badato waxa dhacda dadka qaarkood inay iska tuuraan marka waxa laga yaabaa alaabo iska cusub inaad aragto adiga kula cusub oo second hand oo meelaha lagu tuuray dadka qaarna iska qaataan inaga inta soo Soomaalihaan ugu badnayn laakiin dadka dhaqanka dadka caadiin waa iska caadi alaabta iska fiican tahay iska qaataan ka laftoodu qofku inuu iska fiiriyo waa qaabka la soo gudbiyo balse hadii adiga laftaadu ay kutaan kugu dhalatay alaab aad tuurtay kala jabi alaabti si aan dadka kale maaragtay aan ugu gudbin qaybahaas ama hababkaas waa habka la soo gudbiyo kutaanta markaas ka jeegare alaabta yuusulka ah ama alaabta duuga ah ee aad banaanada ka soo iibsanayso haddaba sidee lagu hortagi karaa kutaanta waxaad ugu hortagi kartaa adiga oo marka aad ogaato in aad gurigaagu kutaan u leeyahay waliba aad ogaato meelaha gaarka ay ku nooshahay inaad burush mariso burushka markaad marisaa inaad faakum garayso kaas waa weyn waxa kale oo kaga hortagi kartaa dharka iyo alaabta ay ku jirto oo uga shakido qaad waxaad ku ridaa
meesha dharka lagu qalajiyo ama qalajada dharka kurid muddo 30 daqiiqo waa laga yaabaa inay taas la disho haddii taas aan weydo waxaad samayn kartaa guriga u banee oo maartay intaad guriga uga tagto qabooji oo temperature-kiisu san ognahay waqtiyada imika qaboobaha kale haddii guriga aan heat lagu shidin temperature-ku hoos buu dhacaa muddo 2 week 3 week ka tag waxaa laga yaabaa iyada lafteedu taas inay yareyso dishana haddii taasi ku shaqeynaydo hab kala jira oo isaguna guriga in uu lagu shido laakiin adigu taa ma sameynaysid taasi kama dhigna inaad guriga inta qaado aad ku shido heatka samada ku geyso taama waxa jira kumbani waxaan ku shaqalo yaqaana way ku imanayaan inkastoo iska qaali tahay laakiin uu guriga ku shidayaan ilaa 120 degree taasna waa laga yaabaa inay disho haddii taasi ku shaqeynaydo waxaad kaga hortagi kartaa inaad u yeedho dadka license-ka u leh inay laayaan cayayaanka dadkaasna waxay leeyahay haystaan dawooyin lagu dilo taasna waa qaabka looga hortago waxaan halkaa yar digniin baan soo gelin lahaa haddii ay ku kalifto inaad u yeedhato qof kaa daweeya ama kaa dila ama kaa takhaluso bahasha la yiraahdo kutaanta weydii dawooyinka uu isticmaalayo waxyaabaha keeni karaan waayo waxa laga yaabaa dawooyinka qaabkood in haddii uu maartay isticmaalo guriga lagu isticmaalo in muddo ka bacdi inay kugu sababaan inuu kansarbo maartay meeshii uu kansar kugu dhaco ama xanuun kale sababaan marka inta badan samee wadashi la samee ama la hadal qofkaas inuu ku sharaxo dawooyinka uu isticmaalayo adiga laftigaagu waxaad samayn kartaa bleach iyo biyo isku dari kartaa meelaha lagu shakido dhan baad maartay ku shubi kartaa taana waa qaab lagu hortago marka inta hadaynu aan kaga hadlo maartay qaabka maxay tahay iyo in cudurka gudbisa iyo meelaha laga helo iyo in la isu gudbin karo iyo sida laga hortago haddana inta ka tago aan haddana channel guud ahaan aan dib ugu soo noqdo kutaantu marka ay inta badan qofka ay jirkiisa maartay rabto inay qaniinto qaabka u qaniinta waxa weeye candhuuf bay marisaa meesha ay ka qaniinayso candhuuftana sabab bay marisaa sababta marisaa waxa weeye si qofku aanu u dareemin qaniiyadaas iyo in markay qaniinayso dhiigga ay ka soo shaqayso aanu ka guntamin oo ay soo ka warqabtaan ba hadii nabar jirka uu ku dhaco nabarkaas jirka ku dhaca markii ka bacdi mudeerka bacdi harkasan meeshii oo qolof yeelatay qoloftaasina waxa weeye waa ka hortaga inuu dhiigu socdo marka iyaduna waxa isticmaalaysaa waxa soo kala dhigma way kugu mudaysaa dhiiggaas ay shaqaysaa ilaa ay ka dhargayso markay dhiigga ka dharagtana way ka istaagaysaa haddii ay mar labada damacdo inay ku qaniinto oo meeshii aad dareento inuu qalinaysa aad gacanta salaad ku taabato meel laga yaabo ilaa wax yar ka dhaca dhiishka qalinta ka yar durugsan ba hadana ka qalinaysa ogaadana kutaantu maaha haddii gurigaaga kutaan laga helo in gurigaas dadkaas ay yihiin dad aan nadaafad lahayn waxaa laga yaabaa dad guryahooda aada u nadiif yihiin in kutaan laga helo marka dadku maaha inay qofku yiraahdo uu qariyo yiraahdo in guriga kutaan baa guriga ku jirto oo maaragtay dadka kale aan u sheegin soo isku koobo maaragtay sidoo laga yaabo in dad u yimaadaan ay ka raacdo taas waa laga fiican qofku haddii guriga kutaan ku arko qaabkaynu soo sheegnay hore kor soo sheegnay dib ha ugu noqdo ka uu siraado waa maaragtay kugu fudud ha sameeyo hana maaragtay kaga takhaluso nadaafad xumana maaha saynu sheegnay waxyaabaha kale oo ay sababi karto aynu soo yartaa taabanayn waxa ka mid ah marka ay kutaantu ku cunto ee ay ku qaniinto waxaa jirta qof baa dadka qaar baa xasaasiyad bay ku noqotaa way isxoqitaanka ay isxoqayaan ayaa waxa dhacda qofkii inuu meeshii ka yimaado taasina waxa laga yaabaa inay u sababto inuu qofkii meesha infection kaga dhaco taasna insha Allah qofku waa inuu iyada lafteedana oo maarta qaabka hortiga hooyay hadii jirkaagu aad xoqdo oo meeshii dhiig ka yimaado gacanta inuu qofku taabsiyo waa laga fiican yahay iyadoo septimia ah leeyahay ama qofku infection gudiga ka dhaco uu ka hortagayo waxa kale oo jirta waxa laga yaabaa dadku is weydiiyaan inuu kutaan baa guriga ku dhalatay waxyaabaha aad soo sheegtay maartay looga hortagana awood uma leeyahay maxaan sameyn karaa aan qofku wuxuu sameyn karaa dowladda hoose city of Columbus qaybta caafimaadka waliba qaybta environmentiga ama deegaanka buu la xiriiri karaa wuxuu oran karaa wuu sheegi karaa in kutaan gurigiisa leedahay waxaan laga yaabaa inay ka caawin karaan oo haddii maaragtay laftooda ay referral u sameyn karaan inay
income based inay yiraahdaan qofkaasi ma awoodi karo in laga caawiyo taasna way dhacdaa oo inay jirta haddii wax faahfaahin oo dheeraad aad u baahan tihiin masaajidka salaamood kala soo xiri kartaan annagana ay siin karnaa insha Allah wixii dheeraad ay faahfaahina Kutaanta saan soo sheegnay oo in ka soo hadalna waxay tahay iyo sida la soo gudbiyo iyo qaabka looga hortago waxaan aad u jeclaan lahaa barnaamijkan aan umka duumayno ee aad daawanaysaan waxa loogu talagalay dadku inay ka faa'iideystaan intiina daawanaysa haddii aad maaragtay chance fresh inaad ku daawataan inaad gaarsiisaan inta kale ee aan daawan haddii ayna macal aad awood waayaan kuwaas inay daawadaan inaad idinku laftiinu aad maaragtay u sheegtaan informationkii aad la wadaagtaan waayo waxa weeye waa qayb ama waa hab caafimadeed oo lagu hortagi karo waxyaabaha maaragtay qofka caafimaadkiisa aanu maaragtay wanaagsaneyn waxaana Kutaantuna يعني سان هروس وشيء إنه ضعف حمك مرة بطو لكن وحياة أساسها وحياة قفك إنه كوكان تو هردوده كحيسوي صحاب التان كفرها بدنيه ست هالسنة مارتي قفك وغيراته تروح يحدو يقانه ويقانه قبل وقرته لكن ما أنت برنامج كاس أن الصوت ومن مساعد كاشلين إيو كولومبوس سيتي والمقايب عافمادك وحن وطلق لي أقوم كرسي إن لقى فايديستو كله وحنا نسكت يدونا إن شاء الله برنامج كلامنا إن هدي لهاي نفتنو ديان يسوق بدينه لكن أوجاده أشهد أن دتك دعونا يو خير الله ينسيه دتك كلنا جارسية هنا كفايدستان دتك آن وحي مارتي أقون وهين فربضن صار يشجع ستة هواعان أما نجحنا صواعان وحنا يوجد بيندونا information بانسين دونا وحنا كان نرجعنا إن شاء الله إننا وراء صوت دابعنا وراءها على آخرستان waxaan u maleynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan khayr badan oo aan idin rajeynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh